أنا wanaagsan aqyaarta hawada aan ku saaxiibnay idilkiinba meel walba aad joogtaan waxaan leenahay waqtiga idin wacnaado dhammaantiinba muuqaalka la gareeyo cid walba muuqaalka la gareeyo waxaan Allah subhanahu wa ta'ala aan kaga baryaynaa in Ilaahay umuuraheeda uu sahlo Ilaahay subhanahu wa ta'ala awlaadda uu barakeeyo inta awlaadoonkan Ilaahay awlaad baari ha siiyo inta gurdoonkaana gur wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ee bawayna ha siiyo dhammaantiinba Ilaahay faraj qeyr qabo Ilaahay ay idin furo qof walba muuqaalka leegta ku qabta waxaan Rabbi subhanahu wa ta'ala aan kaga baryaynaa dambigoodii dambiga waalidkood ee baynu dhaafay Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku cazuma jannatul firdaws على حاسدك وحن لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح بإذن الله الكريم وحكود بين يهوك قصاره محايا لي حاسدك ومدك قريبي صوماليا وحن إلهي سبحانه وتعالى عن كما انقل إن حاسدينتا وحن ربي عن كبري إن حاسدك إن قريقي سوقتسو ربنا وكدح قبت أمد الصوماليات حاسدك غيبت وصيف ريمها يوكسو هل دونا وحن لنا ومن شر حاسد إذا حسد الحاسد لا يفلح إلهي سبحانه وتعالى أنا لما أنت وحن كود بري إن أنت حنوصنا مسلمين تا إلهي وحنونك وكدل قادة أمد الصوماليات قلوبتو إلهي وسكو soo dugo Soomaaliya qaranimada ee soo celiyo ducada waxaan ka dhigan doonaa qaybaha dambe haduu Allah awood leh uu saamaxo waxaan idin soo gudbinaynaa warbixin ku saabsan dawladda Soomaaliya oo xirtay xubno sarsare oo musuqmaasuq lagu eedeeyay kuwaas oo lunsaday lacago gargaar oo dawladda Soomaaliya ay ugu deeqday hay'ada caalami ah hadaba xogtaasi ayaan idin soo gudbin doonaa haduu Allah awood leh uu saamaxo shalay waxa xafiiska wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya iyo waliba xafiisyo kala booqday hantilooraha guud ee qaranka Soomaaliya oo uu heliyo xiriiryaha guud ee qaranka kuwaasi oo u dhabagalaya isla markaana baaraya halka la marsiiyay lacago deeq ah oo lagu deeqay dawladda Soomaaliya taas oo ka timid hay'ada gargaar waxaana meelaha dawladda Soomaaliya diiradda ay saartay gaar ahaan hantilooraha guud ee xiriiryaha qaranka diiradda ay saareen kamid ah wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya dhawaan deeq lacageed ka heshay hay'ada caafimaadka adduunka ee WHO waxaana lacagtaasi lagu talagalay in laga hortago cudurka adduunka aafeeyay ee loo yaqaan coronavirus waxaana lacagahaasi la sheegay in la musuqmaasuqay taas oo keentay in hantilooraha guud ee qaranka iyo xiriiryaha guud ee qaranka oo wada socda shalay muddo saacado badan ah inay ku sugnaadaan wasaaradda caafimaadka waxaana su'aalo la weydiiyay wasiirka wasaaradda caafimaadka haweeneyda ah sidoo kale wasiir ku xigeenka wasiir dawlaha agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka waxaana sida u soo baxday hantilooraha guud ee xiriiryaha qaranka in ay jirto isdabamarin lagu sameeyay lacagta WHO ee ugu deeqday Soomaaliya taas oo lagu talagalay in laga hortago cudurka adduunka aafeeyay marka hore ka dilaacay Shiinaha iyo dhibaatada ba'an ee cudurkaasi uu ku hayo Soomaaliya waxaana la sheegay dhaqaalahan inay hayeen dhaqaale aad u tiro badan oo la siinayay dalalka ka tirsan Afrika waxaana sidoo kale dhaqaalaha waliya deeq daawo ah iyo sidoo kale qalab agab laga hortagayo cudurka coronavirus oo la sheegay in suuqa lagu kala iibsaday waxaana hantilooraha guud ee qaranka iyo sidoo kale xiriiryaha qaranka xalay ay amreen ciidamada booliska gaar ahaan kuwa lagu talagalay inay ka hortagaan dambiyada musuqmaasuqa isla markaana dabagal ay ku sameeyaan musuqmaasuqa ayaa la amray in la soo xiro xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kuwaas oo la xiriirinayay inay musuqmaasuqaasi ku lug leeyihiin isla markaana ay dhunsadeen lacago aad u tiro badan waxaana xalay ciidamada booliska gaar ahaan qaybta dambi baarista ay u dhaceen xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaas oo hadda ku xiran xarunta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho waxaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre iyo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xafiiska hantiloorka guud iyo waliba midka xiriiryaha qaranka uu gudbiyay dukumiintiye ay ku cad yihiin musuqmaasuq ka dhacay wasaaradda caafimaadka oo ay ku lug leeyihiin xubno sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka gaar ahaan wasiiradda wasiir ku xigeenka iyo wasiir dawlaha waxaana madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha laga codsaday inay talaabo ay qaadaan maadaama xafiiska hantiloorka guud iyo midka xiriiryaha qaranka ay soo gudbiyeen musuqmaasuq la xiriira in lacago WHO ay ugu talagashay Soomaaliya la dhunsaday xubnaha xalay gurigooda lagala baxay waxa kamid ah agaasimaha qaybta waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya Maxamuud Maxamed Buule oo hadda ku xiran xarunta dambi baarista CID ee magaalada Muqdisho waxaana sidoo kale xariga agaasimaha waaxda maaliyadda ee wasaaradda caafimaadka Maxamuud Maxamed Buule ku weeliye xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya kuwaas oo la xiriirinaya musuqmaasuqa waa lacagta la dhunsaday lagu talagalay cudurka coronavirus oo wasaaradda caafimaadka ku maqan waxaana la sheegay Maxamuud iyo xubno kale oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka hadda inay ku jiraan gacanta booliska Soomaaliya gaar ahaan kuwa dambi baarista ee CID lana weydiinayo su'aalo la xiriira halka ay ka baxday lacagaha tirada badan ee WHO ee ugu deeqday Soomaaliya in laga hortago cudurka coronavirus ee markii hore ka dilaacay Shiinaha dhibaatada ba'anna ku haya adduunka waxaana sidoo kale wararka intaas ay sii raacinayaan in hantiloorka guud ee xiriiryaha qaranka ee dalbadan in xasaanada laga qaado xubno sarsaro
xasaanad leh oo wasaaradda caafimaadka ka tirsan kuwaasoo la doonayo in la weydiiyo su'aalo la xiriirta lacagahan tirada badan ee WHO Soomaaliya ugu deeqday iyo halka la marsiiyey waxaana la sheegay in la la'yahay lacaga aad u tiro badan oo WHO Soomaaliya ugu deeqday dowladda Soomaaliya waxay qaaday hadda talaabo aad u xooggan oo ku aadan in la xiro xubno sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka kuwaasoo durbadiiba lagu helay inay dhunsadeen lacaga WHO ee ugu deeqday Soomaaliya si laga hortago cudurkan dhibaatada ku ah adduunka iyo waliba sidii loo daaweyn lahaa xubno Soomaaliya laga helay inay qabaan cudurkan coronavirus ee dhibaatada ba'an ku haya adduunka wasaaradda caafimaadka wax waraa meesan ka soo saarin xubnaha sarsare ee wasaaradda ka tirsan loo xiray musuqmaasuqa iyo corruptionka kuwaasi oo lagu helay inay dhunsadeen lacago waxaana hadda CID ku jira xubno tiro badan oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo la xiriirinayo inay dhunsadeen lacagahaasi WHO ugu deeqday Soomaaliya xubno Soomaaliya mas'uuliyiinteeda ka tirsan qaarkood waxay sameeyaan musuqmaasuq iyo corruption waxaana ka faa'iideystaan waqtiyadan oo kale waxaa sidaas sheegay dhaqaaliyahan lagu magacaabo Professor Mahad oo la hadlayay warbaahinta qaarkood wuxuuna sheegay in mas'uuliyiinta qaarkood ay ka faa'iideystaan xilliyada baahida adag ee jirto sida musiibo rabbaani ah markay jirto cudur iyo sidoo kale markay abaaro ay dhacaan in xubnaha qaarkood dawladda ku jira ay ka faa'iideystaan baahida xilligaasi taagan isla markaana ay sameeyaan wax isdabamarin laakiin dawladda Soomaaliya wuxuu ku amaanay dhaqaaliyahankan in talaabooyinka aankan oo kala la qaado ay muujinayso kalsooni xagga caalamka in la dagaalamayo musuqmaasuqa waana talaabo muhiim buu yiri Professor Mahad oo la hadlayay warbaahinta waxaana sidoo kale arintan ay imaanaysaa xilli dawladda Soomaaliya dhawaan banka adduunka uu sheegay inuu ka cafiyo deemo lagu lahaa waxaana la ogaan doonaa halka waa qaabka loo dhaqmo xubnahan iyo waliba qaabka loo horkeeno cadaaladda xilli lacaga tiro badan oo lagu talagalay dad dhibaataysan ay dhunsadeen xubno ka tirsan wasaaradda caafimaadka haddana ay ku xiran yihiin xarunta dambe baarista booliska ee CID dawladda Soomaaliya kor hore waxay xirtay xubno ka tirsan mas'uuliyiinta dawladda qaarna waxaa laga qaaday xilka waxaana ku jiray taliyayaashii ku-xigeenada nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed oo qaarkood lagu helay musuqmaasuq iyo sidoo kale madaxii kastamka dekedda Muqdisho iyo xubno aad u tiro badan kuwaasoo dawladda Soomaaliya ay xirtay walow markii dambe la iska sii daayay laakiin ay ku waayeen halkaasi xilalkii ay hayeen kadib markii lagu helay inay sameeyeen musuqmaasuq iyo waliba ku takrifal dhaqaalo oo ay ka faa'iideysanaya awoodda xilka ay hayaan waxaana hadda ay u muuqataa in wasaaradda caafimaadka si weyn ay kula xisaabtamayso dawladda Soomaaliya waxaana sidoo kale wararka intaas ay sii raacinayaan in xafiiska hantidhowrka guud iyo waliba midka xirlaaliyaha guud ee qaranka ay u gudbiyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre dacwad ka dhan ah xubno sarsare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka oo aan wali la xirin laakiin shalay xafiiskooda su'aalo lagu weydiiyay taas oo ku wajahan qaabka loo maareeyay lacago WHO ugu talagashay Soomaaliya lacagahaasina lagu talagalay in laga hortago cudurka coronavirus walina ma jirto wax war ah oo ka soo baxay xafiisyada madaxweynaha iyo midka ra'iisul wasaaraha ee la xiriira kuwaasoo laga dalbaday in xasaanada laga qaado xubno wasiir ah oo ku jira golaha wasiirada isla markaana tuhun uu soo galo ku aadan in ay dhunsadeen lacago si xafiiska xirlaalinta iyo waliba midka hantidhowrka guud ay ula xisaabtamaan mana jiro wax war ah oo ka soo baxay xafiiska hantidhowrka guud kaasoo ku wajahan in ay ka hadlaan xubnahan ay amreen in la xiro hadda ku xiran xarunta CID ee dambe baarista booliska Soomaaliya wixii arintan ku soo kordhay dib ayaad ka daawan doontaan hadduu Allah awood la u saamaxo dhamaantiin bilaahay aydin xifdiyo ilaahay umuraha leedin hasalo Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana umur almuslimina kullaha sahla ilaahay dhamaanteen waxaan ku weydiisanaynaa dambi dhaaf ilaahay dhamaanteen ba gargaarkaaga iyo kalmadaada u baahanaa ilaahay dhamaanteen ba inoo gargaar ilaahay inta xanuunsan xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel ilaahay waxaan ka maangalaynaa cudurka adduunka wareeriyay coronavirus iyo wax la midka ayaa rab ilaahay wadaan ka maangalaynaa ilaahay magantaadan ku jirnaa ilaahay na amaanso ilaahay magacyada wanaagsan waxaan kugu weydiisanaynaa gargaarkaaga iyo kalmadaada iyo faraj khayr qab ilaahay inoo fur ilaahay dhamaanteen ba umuraha leenahay ilaahay umuraha leenahay ilaahay inoo sahal ya Allah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan faj'al umurana wa umur almuslimina kullaha sahla ilaahay dambigani dambiga waalidiinteen ba ilaahay dhaaf ilaahay jannatul firdaws ala aakhir ilaahay dhamaanteen ba inagay ilaahay muslimiinta meel walba ay joogaan ilaahay naxariiso ilaahay magacyada wanaagsan kalmadaada iyo gargaarkaaga kugu weydiisanaa ilaahay cid kale oo kaalmiye gargaar la weydiista ma jirto ya Allah ilaahay adaan kaalmiye gargaar ku weydiisanaa Allah la ilaha illa huwa الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى ilaahay waxaan kugu weydiisanaa gargaarkaaga kaalmadaada iyo naxariistaada ilaahay qof walba qurba haysata ilaahay qurbada ka dulqaad ilaahay qof walba xanuun haysta ilaahay xanuunka ka dulqaad oo caafimaad ugu bedel ilaahay caafimaad ugu bedel ya rab ilaahay wadaan ku baryeena ilaahay ya rabbi rahmaan wa faraj khayr qaba ilaahay inafur allahumma la maani'a lima a'dayt wa la mu'diya lima mana'at wa la ghadda illa qadayt wa la yanfa'u dal jadd
الجد منك الجد إلهي ولما أنت أنبا قرقارك كلمة نحرست أبهنا إله إنه نحرس وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.